asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan idin salaamay dhammaan asxaabta ku xiran channelkeena kuna soo dhawaada cashirkeena maanta waxaan ka hadlaynaa wax lagu magacaabo distance opposition. waa theoretical end game. haddii aadan aqoonina ciyaartu haddii ay kugu imaado waa laga guuleysanayaa. waa in end gameka markii la joogo distance opposition aad taqaanid. casharadii hore u soo qaadanay waxaa ka mid ahaa opposition and key squares. marka isla cashirkan wuxuu daba socdaa midkii hore oo ahaa distance. kan hadda waa distance opposition, kii hore wuxuu ahaa opposition. marka haddii aadan cashirkii hore ee oppositionka aadan daawanin, fadlan waxaan kaa codsanaa inaad daawatid casharkii hore ee lagu magacaabayay opposition. kanna wuxuu ku saabsan yahay distance opposition. marka iyo weliba waxaa kaloo soo geliya oo iyadana muhiim ah key squares. waxa lagu magacaabo key squares iyo waxay taraan intaba waan soo geliyey. marka casharada waa taxano. haddii aadan key squares ka garanaynin oppositionna aadan garanaynin, distance opposition ma qaadan karti. so marka hore waxaan kugula talin lahaa inaad key squareska iyo oppositionka aad soo qaadatid, dabadeedna aad daawatid cashirkan. haddaba cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay marka waxa lagu magacaabo the distance opposition. distance opposition haddii aad taqaanay opposition waxay ahayd markii tusaale markii aan fiirino markii boqorka haddii uu taagan yahay halkan ay madowgana uu leeyahay tusaale haddii uu madowga leeyahay geediga madowga almost wuxuu imaan lahaa d6 oo halkaas ah, sababtoo ah madowga wuxuu kontroolayaa saddexda ee ka horeyso boqorka oo opposite ayuu ku sameynayaa. laakiinse haddii sidaan ay ahaan lahayd, tusaale sidaan ay ahaan lahayd, boqorka graafka waa aragta wuu kacay, boqorka cad wuxuu tagi lahaa d4. isla markaas boqorka madow ayaa waxaa la dhihi lahaa opposition oo meesha iiga wareeg. markuu dhinac u baxana dhinaciisa kale ayuu aadayaa. then markuu dhinac u baxaba dhinaciisa kale ayuu aadayaa ilaa ayuu askarigan uu ugu dambeyntii uu geliyo iga wareegaa leeyahay. dan wuu ka baxaa. marka almost opposition saas ayuu askariga ku galayaa. distance opposition marka waxay tahay idea good. distance waxay tahay waa oppositionkii weli lama gaarin, laakiin haddii aadan ka fiirsanin way kugu imaan doontaa. weli maysan imaanin. dan haddaa fiirisid yaa lagu wareerin distance opposition and opposition. kan de oppositionkan wuu dheer yahay, weli ma la gaarin. tusaale hadda kan maxaa imaanaya hadda saan hadii balaaga uu moveka lahaan lahaa, balaaga wuxuu imaan lahaa soo kuma dhin d6 oo opposite ayaa lagu sameeyey. graafka almost waa 0-0 waa draw. ciyaarta markaas waa baraajo. laakiin haddii uu marka cadaanka positionkan haddii cadaanku uusan fiirsanin waxaa ku imaan doonto oppositionkii. marka waa inaad kasii baaraan degtid in uu boqorkan kugu sameynin opposite. so shan move oo sharci ayuu leeyahay cadaanka. waa b2, c2, d2 iyo b1. sidoo kale aan ka tegi d1. intaas hal move keliya ayuu wuxuu ku helaa win. afarta kale soo harta waa draw. ma rumaysanaysaa? haddaba aan fiirino marka ka waran. haddii waxaa laga yaabaa bullet game inaad dheelaysid. haddii aan dheelo c2 ka waran, garaafka almost fiiri waa 0-0, sababtoo ah balaaga kama celin doontid hadhowdii inuu kugu qabto opposite, sababtoo opposite kama celin karo. iyo xasuusna cashirkii kale ee aan hore usoo qaadanay ee ahaa haddii aad daawanina waxaan kugula talinaya inaad daawatid cashirkii ahaa key squareska maxay ahayd? waa saddexdan. haddaa xasuustid saddexdan balaaga marka marnaba kama celin karti. horta marka koowaad inaad key squareskaada u xadido. haddii key squareska lagaa xadidana ciyaarta waa brajo. so marka waxaan isku dayeynaa bal aan fiirino inaan progress aan sameyno. okay su-aal marka meeshaan distance opposition waxyar aadi ka tuso waay balaaga uu imaan waayey. markii aan dheelay c3 wuxuu tagay mashiinka wuxuu tagay halkaas oo ah c7. waay
distance oppositionka lagu sheegayo waa meeshan. haddii aa halkan fahantid sababta uu u dheelay c7 waxaad fahansan tahay wax lagu magacaabo the distance opposition. haddii fiiri waxaan dheelay c3 asaga wuxuu dheelayaa c7 sababtoo ah waxaa inoo dhexeysa fiiri markii halkaas uu taagan yahay halkaas kasoo qaad boqorka halkaas uu taagan yahay sooma before intuusan guurin waxaa inoo dhexeyso 1 2 3 positionka intaan geeyo isug saanay kole ahayd ani waxaan intaan taagnaay c2 aan taagnaa c3 aa imaaday. haddii marka uu boqorka madow u dheelo halkaas oo ah c6 ciyaarta anaa ka badanaya markaas sababto waxay tahay opposite-ka anaa haysto markaas kasoo qaad inuu imaaday c6 waxaa lagu sameynayaa opposition halkaa markuu aadana opposite ciyaarta mar walba marka waxaa guuleysanaya markaas cadaanka. laakiinse haddii inta hadduu imaado waxaan dhahay intaa imaan lahaa marka opposite ayaa ku dhacaya. marka optionka ii furan maxay tahay kan haddaa imaado balaaga wuxuu qabsan doonaa kii isku wareyskeeni kan kale haddaa imaado midkan kale haddii aan imaado wuxuu imaan doonaa meeshii aan kuu sheegayo oo ahayd c6 meel kale ma tegi doono. haddii sidoo kale inta aan aado oo ah d4ne wuxuu imaan doonaa midka kale sababtoo mar walbaba asaga wuxuu rabaa in opposite ugu sameeyo. aan fiirino labada dhinac aan fiirino okay c4 doo imaado c6 aa laga rabaa inuu imaado sababtoo opposite-ka iyaga hormaraya. marka opposition waxay ahayd sidaan oo kale laakiin distance opposition waxay tahay ayadoonan weli la gaarin way dheer tahay waxaa laga rabaa in aad iska fiirisid inuu balaaga hadhowdii kaa qabsan doono opposite-ka. that's why waxa lagu magacaabo opposite distance opposition. okay dib aan u laabana haddii ka waran aan tago meesha hadda aan ka tagay d4 haddii aan tago meesha aan ka tagay c4 haddii aan ka tagay ka waran d4 oo halkaas ah okay d4 haddaan dhaho wuxuu almost imaan doonaa isagana d6 mar walbaba boqorka madow wuxuu ku dhihi doonaa wejigaad iga leexisi aan kaaga kontrolo saddexdii ahayd kii isku wariska oo opposite ayuu kaga qabsan doonaa. okay d4 d6 oo imaan doona waa qasab. okay dib aan u laabana marka aan dib u noqono okay haddii somehow waxaa laga yaabaa dadka inay isleeyihin daroomiya aan caada idin tuso c4 maxaa lagu magacaaba meeshaan arag king c2 splendor macnaha ciyaartii aad guuleysan lahayd dhan ayaa gacanta waxaad ka saartay in laga draw gareeyo. okay no progress almost waxay ku dhamaanaysaa stalemate the game is over. okay marka midkan kale haddaan fiirino oo ah b2 ka waran b2 haddii aan fiirino isagana waa blander. okay haddii aan ka waran imaado b3 boqorka wuxuu imaan doonaa sababtoo waxaa inoo dhexeyso haddii aan imaado d3 waxaa inoo dhexeyso 1 2 3 marka ma soo gali doono halkan haddii uu asaga soo galo waa blander. sidoo kale intuu aadi karaa oo kii isku wareyskayga ayaaba furan kii isku wareyskayga kuwaan saddexdaas soo marka boqorka madow ma imaan doono marnaba wuxuu almost beegsan doonaa kii isku wareyskayga then inta ma imaan karo sababtoo anaa opposite-ka helayo waa inuu xagga aadaa. haddii aan inta imaadina horaa idin tuso wuxuu imaan doonaa c6 haddii aan hore u socdana intuu iska soo aadaa sababtoo ah kii isku wareyskii waaba controller opposite uma baahna markaa. okay the only move marka uu ku guuleys ka waran waayahay haddii aan imaado sidoo kale kan waa aragteen ka waran d1 haddaan tago sidoo kale isagana waa blander. why uu boqorka dib ugu laabtay almost is a draw is okay intaba uu imaan karay waa alternative sababtoo ah kii isku wareyska controlaya. okay marka labadaa meel meeshaa imaado wuxuu imaan doonaa meesheedii kale fiiri haddii aan tego e4 wuxuu imaan doonaa opposite oo halkaas ah
haddii aan taga ka waran d4 asagana wuxuu imaan doonaa d6. Okay, marka waa no progress. Okay, marka the only move oo marka ku guuleysto cadaanka waa inuu aadaa d2. waxaan wadi doonaa saddexdan inay controlno oo key squareskeena ah, isla markaasna oppositekeena aan ilaalsano. Okay, d2 markaa tagnay andala waxaan sii aadaynaa, waxaan u degdegaynaa saddexdii ahayd key squareska. Okay, halkan marka waa muhiim inaad ogaatid. ka waran haddii aan aado halkaas oo ah d4, opposite ayaa kugu dhici doona. ogow ma tegi kartid oo boqorka madow wuxuu imaan doonaa d6 oo ciyaartan markaas waa draw. haddii aad ku qaldantid oo istiraatid, okay, boqorka askariga hortiisan taaganahay, askarigana xareyna, that's blunder. you see mujid waa blunder. marka ma tegi kartid halkaas sababtoo opposite-ka laga qabsan doonaa. si aan marka aan iigu dhicin opposite, saddexdaana aan u controlo, waxaan tagayaa e4 oo halkaas opposite ma dhigi karo. then haddii boqorka askarigaada aad laba geedi koor aad taagan tahay, isla markaasna askarigaada lagaa dili karin, the game is over. oo waxaan tagi doonaa e5. okay, the game is over. askariga iska dhaqaajinaya. okay, opposite iga wareeg. okay, wadada iga wareeg. okay, the game is over. marka waa dhamaatay.